subax wanaagsan dhamaantiinba ku soo dhawaada warka subax ee idaacadda kulmiye kooxda daacish oo digniin u dirta shabaabka ka dagaalama Soomaaliya guddiga qabanqaabada doorashada madaxtinimada koonfur galbeed Soomaaliya oo maanta lagu dhawaaqayo booliiska Kenya oo la ogaaday inay laaluush ka qaataan dagaalamayaasha al-shabaab xilliyada weerarada ay fulinayaan golaha shacabka oo maanta lagu wada in la horgeeyo miisaaniyadda dawladdu ay ku shaqaynayso sanadka soo socday ee 2019 ciisad dagaal oo saaka laga dareemay deegaan ka tirsan gobolka Galgaduud oo hore ay ugu dagaalameen al-shabaab iyo ciidamada Galmudug hogaamiyaasha Soomaalida iyo Oromada ee wadadaga Itoobiya oo ka wada hadlay dagaalka u dhaxeeya labada qowmiyadood kalluumaysatada deegaanada Puntland oo cabasho ka muujiyay maraakiib si sharci darro uga jalaabta xeebaha gobolka Bari iyo dawladda Itoobiya oo xabsiga dhigtay 60 ruux oo ay saraakiil ku jiraan Hormuud Telecom u doono adeeg isgaarsiineed oo casri ah. Hormuud Telecom u doono internet xawaarihiisu sareeyo. Adna qaado Hormuud saaxiibkana u qaad. markale subax wanaagsan waa subax sabtiya taariikhdu ay ku beegan tahay 17 bisha 12 November sanadka 2018 xaawo Cabdullaahi Cibeed ayaa saakana warmaysa waa mahadsantahay maxamed bismillaahi raxmaanir raxiim subax wanaagsan warkii oo faahfaahsan kooxda daacish ayaa digniin waxay u dirtay shabaabka ka dagaalama Soomaaliya wariyahana maxamed axmed tuuriyare ayaa stuudiyaha nagala sugan maxamed soo dhawow digniintan daacish ay soo saareen maxay xawlul waa mahadsantahay waa maqaal dheer oo lagu daabacay wargeys ka soo baxa wadanka Mareykanka oo la yiraahdo The Longwood Journal waxa maqaalkan lagu sheegay ama uu soo xiganayaa maqaal kale oo ay qortay shabakad ururka daacish uu leeyahay oo magaciisa la yiraahdo Al-Naba warkan waxa lagu sheegay in daacish ay digniin adag u dirayaan garabka al-Qaacida ee geeska Afrika al-Shabaab Al-Naba ragga qora ayaa waxa ay sheegeen in ururka daacish uu hadda ka digayo in al-Shabaab ay la galaan dagaal iyaga oo sheegay in ay al-Shabaab isku dayayaan in ay waxyeeleeyaan amaba ay dhibaato u geystaan ololaha iyo dhaqdhaqaaqyada gudaha Soomaaliya ay ka wadaan ururka oo madaxda ka yahay Abu Bakar al-Baghdadi maqaalkan lagu daabacay warbaahinta la yiraahdo Al-Naba ee ururka daacish ay leeyihiin ayaa waxa lagu sheegay amaba lagu yiri sida dambiyada aan ku qornayba macnaheedu ma ahan in aan ka cabanayno amaba ay daciiftinimadaana tahay laakiin dadka ayaan ogeysiinaynaa gaar ahaan dadka Soomaaliya ururka al-Qaacida waxa uu sameeyay ayaan doonaynaa inaan u sheegno ay leeyihiin sababtoo ah jawaabta daacish waa ay soo socotaa waana ay imaanaysaa ay leeyihiin ururka al-Qaacida waa ururka daacish oo al-Qaacida garabkiisa geeska Afrika warkan ama digniintan u soo saaray digniintan oo wargeyska The Longwood Journal yiraahdo uu aad u faahfaahiyay ama uu ka faarlooday ayaa waxa uu leeyahay al-Shabaab waxa ay isku dayayaan in ay meesha ka saaraan awoodda daacish ay ku yeelan karaan gudaha Soomaaliya isaga oo soo qaadanaya markii Axmed Godane la dilay iyo hogaanka al-Shabaab markii uu isbedelayay iyo dadaaladii guud ee meesha ka socday arrimaha kale ay soo qaadanaya wargeysku waxa kamid ah hogaanka cusub ee al-Shabaab loo magacaabay 2014 wixii ka dambeeyay markii Axmed Godane la dilay iyo iyaguna dadaaladii ay u galeen in ay al-Shabaab waa in ay ka adkaadaan daacish oo aysan gudaha Soomaaliya galangal fiican ku yeelan arrimaha la soo qaatay waxa kamid ah in meesha ay ka baxday sidii ay al-Shabaab u yareysanayeen awoodda daacish ay gudaha Soomaaliya ku leeyihiin sababtoo ah wargeysku wuxuu leeyahay 96 howlgal oo gudaha Soomaaliya ka dhacay ayay ururka daacish sheegteen tan iyo bishii Abriil 2016 midaas oo muujinaysa inay gudaha Soomaaliya awood adag ku leeyihiin warbaahintan Al-Naba yiraahdo ayaa waxa ay sheegayaan in al-Shabaab ay isku dayeen in ay dil u geystaan xubno iyaga ka tirsan wargeyskuna wuxuu soo qaatay oo uu qoray in al-Shabaab ay gudaha ururka ka qabteen sida ay sheegayaan xubno shisheeye iyo kuwa Soomaaliya kuwaas oo loo daldalay inay doonayeen in ay ku biiraan ururka daacish garabkiisa Soomaaliya marka xaw dhacdooyinkan dhan waa jiraan maalmihii u dambeeyay waxa soo baxay warar amni oo sheegaya in al-Shabaab iyo daacish hardan adag u dhaxeeyo warkii ugu dambeeyay wuxuu ahaa midkii toddobaadkii hore ka soo yeeray degmada Jilib ee gobolka Jubbada Dhexe wuxuu ku saabsanaa in al-Shabaab qabteen
nin u dhashay waddanka Masar oo ka mid ah ajaanibta al-shabaab ka dhex dagaalama ninkaasi iyo rag Soomaaliya oo la socday waxa la sheegay in la xiray isaga waa la dilay oo masaajid ayuu ka dhex dagaalamay laakiin rag kale oo Soomaaliya oo la socday oo doonayay inay Daacish u goostaan ayaa la qabtay oo hadda al-shabaab u xiran tirada al-shabaab u xiran loo xiray in ay Daacish ku beeri rabeen darteed aad u badan tahay dadka qaar waxay gaarsiinayaan ilaa iyo 100 inay gaarayaan kuwa kale ayaa sheegaya inay 100 ka yar tahay laakiin dad baaxadoodu ay badan tahay ama tiro badan loo xiray iyaga oo doonaya inay Daacish ku beeraan ومحسنتاي محمد guddiga qabanqaabada doorashada madaxtinimada koonfur galbeed ee Soomaaliya ayaa maanta lagu wadaa in lagu dhawaaqo Cali Ibraahim Cabdullaahi ayaa warkan faahfaahinaya wararka ka imaanaya magaalada Baydhabo ee gobolka Baay ayaa sheegaya in maanta la filayo in la shaaciyo xubnaha guddiga doorashada ee maamulka koonfur galbeed Soomaaliya gudoomiyaha baarlamaanka maamulka koonfur galbeed Cabdulqaadir Shariif Sheekhuuna Maya ayaa maalmihii ugu dambeeyay waxa uu kulamo ka waday magaalada Baydhabo kulanka intiisa badan waxaa looga hadlayay sida loo magacaabi lahaa xubnaha guddiga doorashada ee maamulka koonfur galbeed isagoona arrintan kala hadlayay xildhibaanada baarlamaanka odayaasha dhaqanka iyo musharaxiinta u tartamaya xilka madaxtinimada ee maamulkaasi guddigu maanta magacaabayo gudoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed Soomaaliya Cabdulqaadir Shariif Sheekhuuna Maya ayaa lagu wadaa in la horgeeyo xildhibaanada baarlamaanka koonfur galbeed si ay u ansixiyaan doorashada madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa maanta dib u dhacday xilli lagu waday inay maanta dhacdo doorashada sababaha ugu waaweyn ee dib u dhaca doorashada ayaa ah iscasilaadii dhawaan ee xubnaha ugu badnaa guddiga doorashada koonfur galbeed iyo inaan weli la soo dhameystirin xubnaha ka haray guddigaasi ila wareedi qaar ayaa sheegaya in la isku mari lahayd dhameystirka guddiga iyadoona qaar ka mid ah xildhibaanada koonfur galbeed ay qabaan aragti ah in guddiga lagu soo koobo ku dhawaad 20 xubnood maadaama markii hore ay ahaayeen xubnaha guddiga doorashada maamulka koonfur galbeed 27 xubnood oo la doorasho iyo loolan siyaasadeed oo aad u adag ayaa ka soconaya magaalada Baydhabo ee gobolka Baay taasoo ay sameynayaan musharaxiinta aad ku faraha badan ee ku sugan magaalada Baydhabo booliiska Kenya ayaa waxaa la ogaaday inay laaluush ka qaataan dagaalamayaasha al-shabaab xilliyada ay weerarada ka fulinayaan gudaha Kenya maxamed cali maxamed ayaa warkan faahfaahinaya warbixin ay soo saartay qaramada midoobay ayaa waxaa lagu sheegay in booliiska Kenya ay shad dagaalamo oo ka tirsan al-shabaab doonayaan in ay isqarxiyaan ay u ogolaadeen in dalkaasi ay galaan bishii January ee sanadkan kadib markii ay laaluush ka qaateen warbixintan ayaa waxaa sidoo kale lagu sheegay in ciidamada booliiska Kenya ay aqbalaan lacag laaluush dhan $20 ka yar isla markaana ay ka qaataan dagaalamayaasha al-shabaab si ay ugu suura gasho in shabaabka gudaha ay u galaan dalka Kenya isla markaana weerar ay ka fuliyaan waa markii ugu horeysay ee laga soo waramo qaabka ay al-shabaab dagaalamayaashooda ku helaan fursadaha weerarka Kenya ay uga geystaan guddiga qaramada midoobay u qaabilsan cunaqabateynta Soomaaliya iyo Eritrea ayaa sheegay in ciidanka xuduudaha jooga ee Kenya aysan daacad ka ahayn dagaalka lagula jiro al-shabaab baaritaan lagu sameeyay weerarada fashilme ee dagaalamayaasha al-shabaab ee Kenya ay ka fuliyaan ayaa waxaa lagu ogaaday in dagaalamayaasha al-shabaab ay xuduuda Soomaaliya iyo Kenya ka gudbaan kadib markii ay ciidanka ammaanka siiyaan 20 kun oo kaliya 20 dagaalamayaasha waxa ay doonayaan inay weerar ka geystaan magaalada Nairobi hase yeeshee ciidamada ammaanka Kenya ayaa gacanta ku dhigay hubka iyo ragii watay waxaana la sheegay in 4 ka mid ah 5 qori ee dagaalamayaasha al-shabaab laga reebtay ay doonayeen in gudaha waddankaasi Kenya ay weerar kaga fuliyaan warbixinta qaramada midoobay ay soo saartay ayaa dawladda Kenya waxa ay ku boorisay in ay ka hortagto laaluushka ay qaataan ciidamada Kenya ay ku sugan xuduudda Soomaaliya ay la wadaagto golaha shacabka ayaa lagu wadaa in maanta la horgeeyo miisaaniyadda dawladda ay ku shaqeynayso marka la gaaro sanadka 2019 Axmed Maxamed Ibraahim warkan ay noo faahfaahiyo maanta ayaa lagu wadaa in xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ay kulan ku yeeshaan magaalada Muqdisho gaar ahaan xarunta ay ku jiraan xildhibaanada ayaa maanta ka doodaya akhrinta koowaad ee miisaaniyadda dawladda Soomaaliya ee sanadka 2019 miisaaniyadda sanadka 2019 ayaa waxaa suurtagal ah in dood adag ay ka yeeshaan xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya isla markaana uu hortago wasiirka maaliyadda ee xukuumadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle 340 milyan ay gaaraysaa miisaaniyadda dawladda Soomaaliya ee sanadka soo socda arrintaas ay ku tusaaleeyeen dadka barta culumta dhaqaalaha
in Soomaaliya dhaqaalaheedu uu soo kac sameynayo. Toddobaadkii tagay ay ahayd markii xildhibaanada golaha shacabka ay ansixiyeen ku noqoshada miisaaniyadda dowladda Soomaaliya ee sanadka 2018 kaasi oo uu horgeeyay Cabdiraxmaan Ducaale Beyle wasiirka maaliyadda ee xukuumadda Soomaaliya isla markaana ay ka dhalatay dood xasaasi ah. Ammaanka wadooyinka soo gala xarunta golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa saaki aad loo adkeeyay iyadoona ciidamo ka tirsan booliiska Soomaaliya la soo dhigay wadooyinkaasi. wararka ka imaanaya magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya ayaa sheegay in halkaas ay ku kulmeen hogaamiyaasha qowmiyadaha Soomaalida iyo Oromada oo uu dagaal u dhaxeeyo. Labada hogaamiye ayaa kulan ay wada qaateen waxa ay kaga hadleen sidii loo soo afjari lahaa dagaalka dhiigga badan ku daatay ee gobolka ku soo laabtay oo ay ugu dambeysay dagaalkii dhex maray labada qowmiyad ee ka dhacay deegaanka Moyale ee Itoobiya. Hogaamiyaasha ayaa sidoo kale isku afgarteen la soo gabagabeeyay dagaalka isla markaasina xal waara laga gaaro si aysan u soo laaban dagaal mar kale dhex mara labada qowmiyadood. kalluumaysatada deegaanada Puntland ayaa waxay cabasho ka muujiyeen maraakiib si sharci darro ah uga jalaabanaya xeebaha gobolka Bari. Cumar Maxamed Soomane ayaa ka waramaya. wararkii ugu dambeeyay idaacadda kulmiye ay ka helayso deegaano ka tirsan degmada Bargal ee Fuwe maamulka Puntland ayaa sheegaya inay sii kordhay oo ay cirka isku shareedhay cabashooyinka xoogan ay ka imaanaya qaar ka mid ah kalluumaysatada ka jalaabata xeebaha deegaankaasi. Yuusuf Salaad Cabdiraxmaan oo ka mid ah kalluumaysatada ka howlgasha degmada Bargal iyo deegaanada ku xeeran ayaa warbaahinta u sheegay in xilligan cabashooyinkooda ay salka ku hayso maraakiib ay ku tilmaameen in ay jarrayb sharci darro ay ku hayaan xeebaha degmada Bargal ee gobolka Bari. waxa uu sheegay inay gudbiyeen dhowr jeer hore cabashooyinka ay ka qabaan maraakiibtaasi kuwaas oo soo dhaafay xadkii ay ka kalluumaysanayeen, waxaana dhacdadii ugu dambeysay oo ka dhacday deegaanka Bargal ay sababtay in la burburiyo gebi ahaanba shabaagtii ay ka kalluumaysanayeen kalluumaystada ka howlgasha degmada Bargal. Si kastaba ha ahaatee cabashadan ayaa ku soo beegmaysa iyadoo ay sii kordhay qaar ka mid ah maraakiibta sharci darrada ah ee soo gaaraya xeebo ka tirsan deegaanada Puntland kuwaas oo tilmaamay xilligan in ay wadaan jarriif ay ku hayaan xeebaha deegaanada maamulka Puntland gaar ahaan kuwa gobolka Bari. ha yeeshee ma jiro wax war oo ka soo baxay saraakiisha ciidamada xeebaha maamulka Puntland ee ku aadan wax ka qabashada cabashooyinka ka soo yeerayay kalluumaystada ka howlgasha xeebta degmada Bargal ee gobolka Bari. manahan markii ugu horeysay sidaan oo kale cabashooyin ay kaga yimaadaan kalluumaystada ka howlgasha xeebaha deegaanada maamulka Puntland kuwaasoo inta badan soo gudbiya cabashada ku saabsan maraakiibta shisheeye ee ka xamaalata xeebo ka tirsan deegaanada maamulka Puntland. markana muduga xiisad dagaal ayaa saaki waxaa laga dareemayaa inay ka jirto deegaan ka tirsan gobolka Galgaduud oo hore ay ugu dagaalameen al-shabaab iyo ciidamada maamulka Galmuduga. Shamis Xasan Haruun ayaa faahfaahinaysa warkan. wararka naga soo gaaraya deegaanka Golongole oo qiyaastii 80 kilomitir u jira degmada Guriceel ayaa waxaa ku dagaalamay shalay ciidamada maamulka Galmudug iyo dagaalamayaasha al-shabaab. dagaalkan oo sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac walow aan loogeyn sida rasmiga ah ama aan la shaacin ayaa waxaa weli isku horfadhiya dhinacyadii ku dagaalamay. dagaalkan ayaa waxa uu ku bilowday markiisii hore dadka deegaanka iyo dagaalamayaasha al-shabaab oo maalmo ku dagaalamayay isla deegaankaasi Golongole. waxaa markii dambese dib uga soo biiray ciidamada maamulkaasi Galmudug si ay garab u siiyaan dadka deegaanka ee la dagaalamaya al-shabaab. xaalada deegaanka Golongole ayaa haatan mid cabsi weyn ay ka jirto maadaama ay hor fadhiyaan labada dhinac ee isaga soo horjeeday dagaalkaas, waxaana laga cabsi qabaa inuu dib ugu qarxo walow hadda xabadu ay degan tahay. warka subax ee raadiyo kulmiye ayaad la socotaan. wararka dibadda ayaa inoo soo socda. duulimaad raaxa leh degdegsiimaya ammaano ayr Jabuuti u doono. dowladda Itoobiya ayaa u taxaabtay taliya ku-xigeenkii hore ee laanta sirdoonka ciidanka Itoobiya General Yared Sarihon iyo ku dhawaad 60 ruux oo la shaqeynayay booliiska wadankaasi sida uu xaqiijiyay madaxa ciidamada Bernahu. booliiska Itoobiya ayaa faahfaahin dheeriya waxa ay ka bixiyeen ujeedka ka dambeeyay xariga sargaalka, balse waxa uu qayb ka noqonayaa tiro saraakiil ah oo dhawaan xabsiga loo taxaabay sababo la xiriira ku takrifal awoodeed iyo masuqmaasuqa.
toddobaadkiina dhaafe ayaa xabsiga la dhigay xaaska sargaalkan oo isku dayday inay qariso sargaalkan sida ay ila wareedyo booliiska Itoobiya ka tirsan ay u sheegeen wakaalada wararka ee Reuters. Sargaalkan Master Yared ayaa horey waxa uu soo shaqeeyay ciidamada dalkaasi isaga oo soo noqday madaxii ciidamada booliiska inkastoo muddo 3 bil kadib uu iska casilay. 2 maalin ka hor ayay dowladda Itoobiya xabsiga waxay dhigtay taliyaha militariga iyada oo sheegtay inay beegsan doonto madaxda lagu helo masuqa ku takrifal awoodeed iyo tacadiga ka dhanka ah xuquuqda aadanaha. guud ahaan war wixii dalka iyo dibadda inaga soo gaaray oo subaxnimada raadiyo kulmiye muqdisho aad kala socoteen waa nageynta cidii warkan uu dhaafay raadiyo kulmiye ayay ka daalacan karaan dhageystayaasheena ku sugan magaalada Beledweyne waxay naga maqli karaan raadiyo wadani gaalkacyo raadiyo hayaan cadaadana raadiyo cadaado nabadgelyo.